taliye marka hore waxaad warbixin naga siisaa dagaalkii saaka gaalkacyo ka dhacay sidee buu ku bilowday bal warbixin naga sii adoo mahadsan dagaalka haddaan warbixin ka siiyo saaka markay ahayd waagu markuu bariyey nuskii saacadu qiyaastii bay xabadda bay weerar soo qaadeen dagaalkaasi ilaa waxa weeye 8 waa socday ma garan waa gartay dagaalkaasi waxa weeye dagaal ay doonayeen inay ku qabsadaan gaalkacyo ahaa dagaalkaasi waa ku gool daraysteen muxuu dagaalkani kaga duwanaa dagaaladii horay idii ku dhex maray gaalkacyo galmudug dagaalkan wuxuu kaga duwanaa isku jir buu ahaa al-shabaab iyo federaal iyo galmudug isku jir buu ahaa oo kuwii hore waa gartay galmudug waa dagaalami jiray dagaalka galmudug nusaac waa xabaday ka bararaqsi jiray waa carari jireen dagaalkan marka wuxuu kaga duwanaa waxa weeye meeladkoodii baan aragnay waxa weeye dharka way kala baxayeen tuutaha way kala baxayeen calaamadaha ciidanka lagu yaqaano way kala baxayeen ma garata qofka way qaawinayeen haddana meydku wuxuu yaalaa difaac uu yaalaa ma garata meeladkoodii khasaaraha dagaalka ka dhashay waxaa wararku sheegayaan inuu baaxad weyn yahay markay adigoo ka warramaya dhinaciina khasaaraha soo gaaray iyo inta aad ka warayso dhinacooda maxaad oran lahayd wallahi nin dhinaca khasaaraha waxa weeye hadda adigu waa rag adigu 12 meelahaas naga dhintay daawacuna waa 12 ma garata dhinacooda hadda daawaca meedka meelaha yaala konta waa ka badan yihiin waa gartay dagaalka waxaa la sheegayaa in gaadiid lagu kala qabsaday sidoo kalena maxaabiis lagu kala qabsaday maxaad dhinaciga ka waray waa ka qabanay maxaabiisna hadda waxa weeye isbitaalka dhaawacyo lagu daaweynayo lagu dabiibayo waa la sheegay kolay nin waa la sheegay nina waa dhintay leeyahay markii meesha la geeyay waa gartay gaadiidkaad ka qabateen telegia adigu 3 gaari baan ka gubnay 2 gaarina waa laga qabtay waa gartay markay waxaad sheegtay in al-shabaab qayb ka ahaayeen dagaalka maxaad ku xaqiijinaysaa taliye Jimcaale waxaan ku xaqiijinaynaa waxa weeye al-shabaabku bini aadamka kale uma eka marka waxa weeye calaamadoodii baanu aragnay maxaa kamid ah calaamadooda qoryahooda waa ka duwan yihiin qoryaha kan qoryay baan ka qabanay akiyaashoodii waa ka duwan yihiin akiyaashan way goorceen baan arkeen oo ay galmudug dhaqanka ma ay lahayn dagaalka waxaad ii sheegtay in la idin soo weeraray oo idinku aad difaac ahaydeen micnaha ma waxaad ula jeedaa in aysan jirin deegaano la kala qabsaday iyo goobo fariisimo hor leh oo ciidamadiinu ay tageen oo kuwii hore aad weli ku sugan tihiin anagu difaac haddaan jabinay waxa weeye fugoodii waa tagnay wayna kala saxdeen fariisadoodii baan kabacdina anagu ujeedkaygu ma ahayn inaan dhul qabsano difaac iyagaan kusoo noqonay waajibka aanu haysanaa wuxuu yahay inaanan dhaafin difaac iyaga dagaalka waxaa la sheegayaa dagaalka dad rayida inay ku wax noqdeen markay arrintaasi war ma u haysaan ka ciidam ahaan maxayse tahay amarka aad ka haysataan maadaama saraakiisha ciidanka puntland ee gaalkacyo ka joogay aad kamid tahay anagu amarkaan ka haysano waxa weye shacabka inaan badbaadino haddii aanu isbitaalka tegayna dad dhaawac oo shacaba waa ku arkay oo dhanka maaragtay puntland ah waxaana laigu yidhi xabado lagu soo tuurturay magaalada ku dhacay annagu se dagaalka iyagu wuxuu ahaa miyiga ciidamaan la diriraynay magaalada xabadda waa ka ilaalinaynay iyo carruurta iyo dumarka labada dhinac kuwa jooga sugaymi wey marka dagaalkani taliye maadaama aad sheegtay inuu cuslaa khasaare baaxadlana uu sababay xaaladii gaalkacyo ee dhinaca nabadda ma kasii cuslaynaya oo halkii ma kasii foganaya sidee buu kula muuqdaa qaabka uu maanta ku dhacay iyo waxa xigi doona nimankan nabad ma rabaan waxa weeye waxa la yidhaha galmudug bay wataan oo dastuurka ugu qoran gobolka mudug oo dhan baanu gacanta ku dhigaynaa bay leeyihiin ma garan marka puntlandna waxa weeye arrintaas ma dareensano oo waxay weli rabtaa nimanka mas-uuliyiinta madaxda usarsalaysa inay nabadda soo dhaweeyaan oo nabadda raadiyaan laakiin way ka go-an tahay nimankan weerarka 15 ay nagu soo qaadaan wey puntlandna waxa weeye way isdifaacaysaa shacabka puntlandna waxaanu usoo jeedinaynaa meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan dalkooda say difaacan lahaayeen shacab iyo ciidanba iyo dawladda isku duuban ma aha waxa kan wax loo dulqaadan karo ma aha dhibaato joogtaa bay ku hayaan gobolka mudug inaan awoodooda burburin khasab ay nagu noqonaysaa waxaad ii sheegtay in saldhigyadooda aad tagteen oo aad goobo ka qabsateen haddana dib aad uga soo laabateen maxaa sababay inaad dib uga soo noqotaan waxaa sababay dawladda amar ka bixisay in difaaca lagu soo laabto
aan hore loogu socon oo ma tusay iyo weli xeerinaya inay nabadii shaqeyso laakiin ma shaqeyn karo kaasna wuxuu ahaa taliyaha ciidanka kumaandoosta Puntland Cornel Jimcaale Jaamac Takar